سجينا سيدا وحود عان فتربصوا إذنكم السجع فستعلمون وادوغان دونتان فستعلمون وادوغان دونتان من ضد بادوغان دونتان أصحاب الصراط جيتك أصحاب تيسي جيتك أسوي توصنا يوم اهتدى قفك هنوسان وادوغان دونتان دينو سيجوغنو قفك جيتك توسكا هيو ألا وغرغارو يا قفك هنوسان يا قفك بنانك وقبحي حق وقبحي وما كان وغان دونا بالي muddo 4 sano ayaa laga joojiyay inuusan wax duruus ka bixin masaajidkaasi iyo guud ahaanba deegaanka Somalida waxaana ka joojisay xukuumadii hore haddase intuu isbedel ku yimid kadib dib ayuu u bilaabay duruustii uu bixin jiray Sheekh Cabdinaasir Xuseen Cismaan waxa uu tafsiirka Quraanka Kariimka iyo culumta kale ee diiniga ahba barayay ummadda Soomaaliyeed in ka badan muddo 7 sanadood ah magaalada Jigjiga waxa uu markii ugu horeysay ka bilaabay kitaabka tafsiirka Quraanka Kariimka iyo culumta diinta Islaamka 2005 Sheekh Cabdinaasir oo ka waramay waayaaragnimadiisa cilmiga tafsiirka Quraanka Kariimka iyo culumta Islaamiga ahba waxa uu yiri insha Allah anigu dacwada muddo dheer baan ku soo jiray anigoo yar yaan kutubta bilowday 14 jira muddo dheer baan talib ahaa wax akhrisan jiray tafsiirka 7 sano tafsiirka aqri jiray midba meel aan joogaba meel badan Soomaaliya gobolkeena gobollo kale 7 sano masjid kana cusub baa culimadii joogtay waxay iga dalbeen inaan kitaabka aanu bilaabo aadadku iima aqoon kitaabkii waan bilownay alxamdulillah dad fara badan baa ku soo taxmay oo dhageysta 4 sanana laga joojiyay marka qoladii yaana laga joojiyay 4 sano markii hadda fursad la helay baanu haddana dib u bilownay marka si guud ahaan anigu tafsiirka dantan kale waxa weeye dadkeenu 100% waa muslim cilmiga kala way yaqaanin cilmiga bulshada iyo ahkaamta way yaqaanin anu xooga waxaan saaraa xagga aqeedada yaan inta badan xooga saaraa dhalinyaradana waxaan si gaar ah ugu gudbiyaa inay ka faa'iideystaan yaa si gaar ah ugu gudbiyaa dhankooda qaar ka mid ah xirta ama ardayda ku taxan kitaabka tafsiirka Quraanka Kariimka ayaa ka hadlay dareenkooda sheekhu waxa weeye aad baa looga faa'iideystay magaalada Jigjiga marka arinta waxaan ugu mahadnaa Ilaahay Azza wa Jal inuu sheekhayo noo barakeeyo kadalika waxaan walaalaha leenahay ka faa'iideystaan halkaas marsanayno tafsiirka cilmi badan waxa haddaan cid kala gaarsiin qoyskaaga mara tagto ashirkii xaraf-xarafka nagu yar dhaga mooyaane inta badan oo naga faa'iideynaa inaan carruurtiinta soo ururino bal ashirkii caawin loo mariyaan isku dayno oo wali ubadkii gaarsiino waxaan ka mid ahay xirta ku taxan tafsiirka Quraanka Kariimka ee uu wado Sheekh Cabdinaasir غفر الله له سجينا سيدا وحود عان فتربصوا إذنكم السجع فستعلمون وادوغان دونتان فستعلمون وادوغان دونتان من ضد بادوغان دونتان أصحاب الصراط جيتك أصحاب تيسي جيتك أسوي توصنا يوم اهتدى قفك هنوسان وادوغان دونتان دينو سيجوغنو قفك جيتك توسكا هيو ألا وغرغارو يا قفك هنوسان يا قفك بنانك وقبحي حق وقبحي وما كان وغان دونا بالي muddo 4 sano ayaa laga joojiyay inuusan wax duruus ka bixin masaajidkaasi iyo guud ahaanba deegaanka Somalida waxaana ka joojisay xukuumadii hore haddase intuu isbedel ku yimid kadib dib ayuu u bilaabay duruustii uu bixin jiray Sheekh Cabdinaasir Xuseen Cismaan waxa uu tafsiirka Quraanka Kariimka iyo culumta kale ee diiniga ahba barayay ummadda Soomaaliyeed in ka badan muddo 7 sanadood ah magaalada Jigjiga waxa uu markii ugu horeysay ka bilaabay kitaabka tafsiirka Quraanka Kariimka iyo culumta diinta Islaamka 2005 Sheekh Cabdinaasir oo ka waramay waayaaragnimadiisa cilmiga tafsiirka Quraanka Kariimka iyo culumta Islaamiga ahba waxa uu yiri insha Allah anigu dacwada muddo dheer baan ku soo jiray anigoo yar yaan kutubta bilowday 14 jira muddo dheer baan talib ahaa wax akhrisan jiray tafsiirka 7 sano tafsiirka aqri jiray midba meel aan joogaba meel badan Soomaaliya gobolkeena gobollo kale 7 sano masjid kana cusub baa culimadii joogtay waxay iga dalbeen inaan kitaabka aanu bilaabo aadadku iima aqoon kitaabkii waan bilownay alxamdulillah dad fara badan baa ku soo taxmay oo dhageysta 4 sanana laga joojiyay marka qoladii yaana laga joojiyay 4 sano markii hadda fursad la helay baanu haddana dib u bilownay marka si guud ahaan anigu tafsiirka dantan kale waxa weeye dadkeenu 100% waa muslim cilmiga kala way yaqaanin cilmiga bulshada iyo ahkaamta way yaqaanin
anu xoogga waxaan saaraa xagga caqiidada yaan inta badan xoogga saaraa dhallinyaradana waxaan si gaara ugu gudbiyaa inay ka faa'iidaystaan yaan si gaara ugu gudbiyaa dhankooda qaar ka mid a xerta ama ardayda ku taxan kitaabka tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka hadlay dareenkooda sheekhu waxa weeye aad baa looga faa'iidaystay magaalada jigjiga marka arrinta waxaan ugu mahadinayaa ilaahay caza wajal inuu sheekhayga noo barakeeyo kadaalika waxaan walaalaha leenahay ka faa'iidaystaan halkaas